muddo waxaan ka tirsanaa maxay ahayd fanaaniinta Soomaaliyeed ee gaar ahaan wax la dhiga fanaaniinta caalamka ee dunida meelo badan soo maray magacaygu waa Sahra Axmed Maxamuud waxaan ahay reer Hargeysa waxaan ku dhashay Hargeysa waxaan ka baxay iskuulka Faarax Omar waxaan fanka ka galay Hargeysa Hargeysana waan dhex joogaa markii hore waxaan ahaa gabadh baaska ciyaarta أنا بس كعيارين أركي محي هيدين لأن يراك واحد أنا لورين شريت توما يسا ميوزك سان كل بالمدن تشافين لأن هي سكرو مركا وحن كحيقي أرد كي باسكتك مركا وحن دور بدأنا فانكا هلقا خبرابو وحن له وحن قالي كوحدي كان داوي مركا دمنا وحن تجي فرانسيسكا وحن كمل نقضي كوح ليلا سهر هلقا تخيو ومحي هيدي دادوية كوريكتا إمك كوحدة وحن كاتر سنة مدة 10 سنة waxaana iga caawiyay markaan de Faransiiska tagay afmaan garanayn waxaan ku turjumaan jiray maxay haydeen dareenkayga waxaan soo qaadan jiray mariyo ayaan tuuli jiray marka buugaag baa lagu soo saaray mariyaha marka waxaan u sheegay inaan fanaanada waan u hees jiray oo music waxba toona jirin qoolo la yiraahdo ala gayon oo ah classic music dadka ciyaara ayaan dabadna u hees jiray markaan heesahayga qaaday iyaguna class music ay ku ciyaari jireen oo music bala ma baahnayn qoladaas dabadna ii gudbisay qolo kale maxay haydeen musician kana nimka la shaqeeyo